asalka dajaal cawar dajaal waa mid kamid ah calaamadaha qiyaamaha ugu waaweyn kuwa soo baxaya meel ayuu ku xiran yahay kadib meeshaas ay laga soo dayn doonaa kadib dadka ayuu sheegay doona ilaahnimo kadib wax raaci doonta intii bilaa iimaanka ahayd intii gaalada ahayd waa nin alla siiyay sixir aan caadi ahayn kaasoo dadka ka lumi doono jeeda saxda ah ninka nabi kasta ummadiisa uga digay fidnadiisa awgeed nabigana sharafta badan ee Muhammad naxariis iyo nabadgelyo korkiisa haatee aad ayuu ninka inooga digay xadiiska saxiix bukhariga ee tiradiisu tahay 7127 ee macnuusu yahay waa niga digay dajaal sir ayaana niga sheegaya taas oo ah inuu cawaran yahay dajaal rabbigiinuna ma cawarna warninkaas uu cawaran yahay rabbigiinuna ma cawarna labadiisa dhexdooda wax ku qoran kaafir ama kafaara astaamiisan wax kamid ah inuu yahay nin gaaban oo cas oo timaadag oo rifrif leh lugiisna way qolocan labadiisa doodna mid ayaa masaxan takalana dibadda ayuu soo baxsantay waxaana fooda ka qoran kaafir labadiisa gacmoodna way kala dheer yihiin inagoo hadana saas u naqaana qof iimaankiisu yar yahay ama iimaankiisu aan xoogsanayn wadaba carar doona gaalkaas kaliya wax ka badbaadi doona ruuxii iimaankiisu uu buuxo oo qofka iimaankiisa ayaa xukumaya sidoo marka qabriga u galo uu iimaankiisa uu xukumo hadaba goorma ayuu soo baxaya xageese ayuu ka soo baxaya nabigeena maxamed naxariis iyo nabadgelyo korkiisa haatee waxaan noo sheegay inuu isagu yahay nabiyada kii ugu dambeeyay ummadana ay tahay ummadii ugu dambeysay waxaan ugu soo baxaya inaga oo ah ummadii ugu dambeysay wax culimadu sheegtaa inuu ka soo bixi doono ama ka soo baxayo Iran iyo Afghanistan iyo meelo ka tirsan Aasiyada dhexe wax culimadu sheegteen markuu soo baxo awalka ugu horeysaba inay raaci doonaan 7,000 oo yahuuda kuwaas oo Iran ka soo jeeda dabcan maataduna way ka badan yihiin intaas yahuuduna dajaal ay sugaysaa maantana xagga dajaal ay dadka u leexinayaan markuu soo baxana iyaga ayaa ugu horeyn doona kuwa raacaya saas ayaguna rabaan inay raacaan dadka kale waxay dadka muuminiinta u yaaci doonaan guryahooda iyaga xaaskooda iyo carruurtooda ka hor istaagaya inay raacaan kaafirkaas laakiin ma celin karo oo way ka xoog badnaanayaan oo isaga ayaa xadhka u xidhayaan kadib ay ka yaacayaan oo ay dabagelayaan gaalkaas xun ee kaafirka ah soo bixitaanka dajaal waxa ka horeeya arrimo dhowr ah taas ay ka koobtay soo bixitaanka nabiga akhir zamaanka oo ah Muhammad naxariis iyo nabadgelyo korkiisa haatee iyo soo bixitaanka mahdiga waxa kale oo kamid ah in loo noqdo sidii asalka yaani dad ku noqdaan baadiyahoodii oo laga baxo tiknoolajiyadan iyo isgaarsiintan casriga ah waxyaabo kale oo badan oo ka horeeyana way jiraan oo dad badhidna wad helaysaa dajaal markuu soo baxo wuxuu noolaan doonaa 40 cisho maalinta koowaad waxa la mid tahay sanad maalinta labaad waxa la mid tahay bil maalinta saddexaad waxa la mid tahay week inta kalena waxa noqonaysaa maalmo caadiga hadii la xisaabiyo waxa noqonaysaa sanad iyo badh inta yar uu nooleeyay ayuu dunida oo dhan saa ugu soo wareegaya dunida oo dhan meel kasta cagta ayuu dhigaya aanan hayn Maka iyo Madiina labadana albaab kasta laga soo galo malaa'ig ayaa la hortaagan seefooda kadib Maka ayaa saddex jil gelgelaya waxaana ka soo baxaya kaafiriintii iyo gaaladii ku jirtay beedka haddaba fidnooyinkiisa maxaa kamid ah sida uu sheegay nabigeena Maxamed naxariis iyo nabadgelyo korkiisa haatee inaan dunida soo mari doonin in dajaal yahay fitnada ugu weyn ee dunida soo martay intii ay jirtayba aadam ilaa ka qiyaamaha sidoo kale fidnooyinkiisa waxa kamid ah inuu leeyahay sixir aan inaba caadi ahayn kaasoo dadka ku marhabaabinayo uu kaga jeedinayo wadada xaqaas sidoo kale dadka ku soo dabayacay doonaan sidoo kale waxa la socdaa laba wali labadaas oo kala biyo qabow iyo dab holcaya dabka holcaya wuxuu ku ridiyaa cid raacweeda ee ka soo horjeeda biyaha qabow wuxuu galinayaa cid raacda ee isaga dhinaciisa noqota laakiin nabigu wuxuu yiri fooda la gala naartaas sababta iyada ayaan noqonaysa biyo qabow cirka ayuu amraya in roob soo shubo waanu soo daaya dhulka ayuu sidoo kale amraya inuu soo saaro cawska sidoo kalena cawska uu soo saari doona wuxuu imaanaya tuulo kadib tuuladaas weydiidaysa oo marraacayso kadib tuuladaas ayuu nolosha ku culeelinaya oo abaar ayuu ku salinaya sidoo kale xoolahana uu ka marinaya sidoo kale tuulo kale ayuu tagaya tuuladaas ayaa iyaguna raacaya nimca ayuu siinaya waanu barakanaya xoolahooda laakiin waxaas oo dhan ma aha mid isugu leeyahay xagga rabbi ayaa ka socota ilaahay ayaa ku imtixaamaya sidoo kale nabigu wuxuu noo sheegay arrimaha uga badbaadi doono fidnooyinkiisa nabigu wuxuu noo sheegay si aan uga badbaadin lahayn fidnooyinkiisa waxaan noo sheegay in la akhriyo 10 aayadood ee ugu horeeya suuratul kahfi sidaas darteed ayaa sunnah looga dhigay maanta jimco in la akhriyo suuratul kahfi dajaal markuu dunida qaso waxa soo bixi doona masiixii dhabta ahaa kaas oo ah Ciise ibn Maryam kadib ayuu dajaal dili doonaa waxaana ku dili doonaa meel la dhaho Baabulud oo ku taala Falastiin haddaba saddex ka ilaalinaya ninka shartiisa maanta ayaad fursad haysta oo iimaankaaga aad ku cin kartaa